qofka bani aadamka jirkiisa uu dhisi karaa oo raggu inay jirkooda dhisaan waxa la mid ah dumarkuna way dhisi karaan oo inay gabadhi noqoto mid iska jirjilicsan oo hayruufaysa ama jirkeedu kuuskuusan yahay waxa ka fiican inay noqoto mid habaysan oo military soconaya military waa laga baqayaa ina qurux badan inay noqoto oo ka guursanaya iyo ninkeedaba oo qurux badan marar badanna dumarkeenu kuwa miyiga mooyaane kuwa magaalada sibay isaga yar jilicsan yihiin oo kuwa miyigu runtii waa birfinin ka hadhay oo shaqo badan bay qabtaan laakiin kuwa miyigu laga yaabaa inay gambadh iskaga fadhido oo halka ka sheekayso oo dabeedna tacbaanto socon kari weydo dhaqdhaqaaqi kari weydo marka muhiim waxaan u daliishanaynaa xaaskii nabiga Caaisha si uu taabaro nabi maxamed bay la baratamaysa mar isaga ka dheereeyay marna iyada ka dheereysay marka waa kii lahaa tilka bitilka kolkii hore adiga dheereysay imikana ana ka dheereeyay sutur wax maaragtay dhibo ku jira ma jira sharci ahaan asaasay sax u tahay laakiin maxaa loo baahan yahay lagu lifaaqaya taa usluub sharciga waafaqsanay Soomaa طريقة شرعية وافق سوينيت وآن من أجنبي جيم كبرينين شركة ذو قاون لأركينين قراري ذو قاون أنا كعياري كرينين كل هذا نحديث أما جيم ده ضمر كون حرارة ضمر استوابريان صور عظمة لكن من أجنبي استوابريان من أجنبي أركيان من أجنبي تابنيان هو حرامي أما محرم كذا وأنه توابريان بهد من كذا إلى كذا أما هنا كوالي تبريس صور كسمعته أنت أوحي على الشريعة على السلام هو حرام وغير الآن قفكنا هدانو هنا سلهين إيمان مله نكون وين كهنا سا حمان كبرنا وين كهنا سا كبرنا وين سمعته هذا إلى شطة تين اللي هنا من كذا إلى شنيس تي كلا عرفتون هنا توين العيب لقشيء وحاو قيمة بدن هبلو كم المرأة وحوينا تسوينا عفيفة وحشاد بدن أو دورصان قرآنكو لبها بلاد با إلهي وكشكي سورة قصص وحكو أماري فجاءت إحداهما تمشي على استحياء حشاد بكو أماري إنبا تمي النبي موسى تمي إيضا شورين يسو قاشامان وحشار يس وحين آخرين أنت الدنيا دو أي لسن طورنا جرتورنا قرآن كسال آخرين hablaha waxa uu qiimo badan wax xishoodka ninku haduu xumaan doonayo iyo haduu wanaag doonayo guurba tu xishoonayso raadsanaya ku xisaabtama marka sumcada aan ilaashana ilaahay agtiisa iyo aayatiinkeeda dambeba ma banaana in ajnabi inuu gabadh shirkeeda arko taabto la gooni noqdo